Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Markan waxaan halkan ku arki doonaa qayb kale oo ka mid ah casharrada imtixaanaha ah ee Oracle Databaseska. Maanta waxaan rabnaa inaan qayb kale oo ku saabsan sida loogu xirmo userska kala duwan ee Oracle Databasekan halkan ku aragno. Userska aad ku xirmi karto ama schema aad ku xirmi karto waxaa ka mid ah Human Resource HR-ka, Order Entry-ga, Scott iyo wixii la mid ah user ah oo adiga aad abuurto. Si aan marka ugu xirano maadaama aan isticmaalayno muxuu ahaa Oracle 12c oo ka duwan tahay 11g iyo 10g iyo kuwa la midka ah. Sida caadiga ah markii la rabo connection-ka in muxuu ahaa lagu xirmo SQL aniga hadda waxaan isticmaalayaa CMD-da. Dabcan userka admin-ka ah Oracle 12c maadaama isticmaala waa system ama SYS. sysdb ahaan aad ugu xirmaysaa. Password ku weydiinaya dabcan password-kan mar walba waxaan ka dhignaa root. Sida caadiga ah markaad meeshan joogto maadaama 12c ay tahay cloud based waxaa markasaan ugu soo xiranto marka ugu horeysa aad ku xirmaysaa wax la yiraahdo container database-ka guud ee la rabo in database-ka balaagable database-ka laga sii dhex abuuro. Si aad u ogaato marka container database-ka aad ku xiran tahay waxaad leedahay show con name waa la mid ah container name-ka i tus. Dabcan sida default-iga ah waa cdb ama container database $root waa midka default-iga ah. Marka waxaan rabnaa hadda maadaama aan container database ku xirana laakiin aan database muxuu ahaay balaagable database aan ku xirnayn waxaan rabnaa inaan ogaano databaseska balaagable databaseska ah ee uu ka kooban yahay ama ku dhex samaysan container database-ka. Si aan u ogaano waxaan leenahay select name comma container id waxaan kasoo akrinaynaa view la yiraahdo maadaama data dictionary lagu kaydiyo view pdb oo u taagan balaagable databases oo soo gaabiyay oo ah pdbs mar walba semicolon oo dambeeyo oo ah termination. Hadda meeshan waxaan noo abuuran laba balaagable database midna waa default oo ah pdb seed midna waa orcl pdb. Anaga marka midda aan u socono waa midaan orcl pdb. Mar walbana waxaad xasuusnaataa muxuu ahaa balaagable database-kan id-giisa ama container id-giisa oo ah lambar 3. Marka waxaan u baahanahay balaagable database-kan orcl pdb la yiraahdo inaan ogaano service name-ka looga aqoonsado marka system-kan ku save gareysan yahay ama system-kan uu ku duuban yahay. Dabcan balaagable databaseska iyo service name-keeda dabcan mar walba isku mid. Si aan u ogaano marka waxaan leenahay select name from $sign active underscore services where aan leenahay marka container id ay la eg tahay number 3. mar walba marka sida aan sheegnay balaagable database-ka iyo service name-kiisa waa isku mid. Service name wax kale ma ahan waa magaca database-kan uu kaga duwan yahay ama looga aqoonsanayo magaca kale si loogu xiro. Marka waxaan u baahanahay service name-kan inaan database-keena u soo baxsano mar walba aan soo abuurno maadaama aan rabno inaan ku xirano. Si aan marka u soo abuurno waxaan tegaynaa muxuu ahaay folder-ka system-kan muxuu ahaa naloo dhigay ama base-ka meesha noo ah. Waxaa aniga mar walba ku duubnaa marka sidaan tegaynaa folder-kaas application la yiraahdo lagu duubaa product-gaas aad tegaysaa folder-ka la yiraahdo waxaad sii tegaysaa version-ka waxaad tegaysaa db home meeshaan markaad joogtid xarafka n taabo network-aa kuu soo baxaysa network-gaas ku dhifo admin-kaas sii tag marka admin-kaas tagto meesha ay ku qoran tahay tns names markaas waxaad furtaa file-kan la yiraahdo tns names. File-kan markaa furto copy waxaad tiraahdaa halahan ay ku qoran tahay orcl intaan markaa koobiyeysid waxaad hoos u baxdaa wax yar kadibna hoostiisa waxaad ku dhahdaa paste control v ku dheh. Meeshaan marka orcl waxaad gadaal uga dartaa kaliya pdb. meeshaan ay service name ku qoran tahayna ha ka tagin sababtoo ah waa meesha ugu muhiimsan
meesha aan rabno markaan databasekeena ku xirmayno inaan sheegno meesha aan u socono inay yihiin service nameka ORCL BDB databaseka la yiraahdo inaan ku xirmi rabno markaana waxaan raacsiinaysaa BDB dabcan meeshaas waa capital intana waa small ha isku qaldin control safe dhe marka meeshaan markaa saveedo kadib meeshaa iska xirfo waxaan nagu soo celisaa muxuu ahay SQL plus keena SQL plus ka soo ran gare markaad soo ran garaysid waxaad ugu xirantaa sys as sysdba passwordka ku weydiinaya dabcan passwordka rigama meeshaan markaan joogno waxaan rabnaa hadda maadaama containerkeena uu yahay muxuu ahaa midkii rootka ahaa ama default container namekii waxaan rabnaa inaan u bedelano ama aan soo aadno pluggable database aan rabno si aan database pluggable database usoo dhex galno waxaan rabnaa inaan dhahno muxuu ahaa alter session set containerka waxaa iga dhigtaa ORCL BDB okay hadda marka waxaad tidhaahdaa show container namekeyga tusde dabcan hadda waxaa noogula bedelay container namekeena waxaa loogu bedelay muxuu ahaa ORCL BDB ORCL BDB waa midka marka databaseka ku dhex abuuran yihiin userska la yiraahdo HR-ka ama schemaha haddii kale schema adiga container kugu jira HR schema ma heli kartid waa inaad kusoo xirantaa pluggable database intaana meel kale aadin maadaama hadda container muxuu ahaa databasekeena aan kasoo gudubnay waan usoo gudubnay pluggable database waxaan rabnaa inaan ogaano pluggable databasekan userka HR-ka inaan uga xirmano HR userkaas iga xir slash passwordkiisa waa HR@ORCL BDB userkan waa loo garaysan yahay sida aad u jeedaan userkan ama akoonkan waa loo garaysan yahay si aan looga uga qaadno waxaan ku qasbannahay inaan database administrator ahaan ugu soo xirano waxaan leenahay connect sys as sysdba passwordkiisa geli root okay haddana waxaan leenahay alter session set container equal ORCL BDB okay hadda waxaan leenahay alter user HR identified by HR account unlock aan leenahay logga inaan ka qaadnaa rabnaa logga waa ka qaadnaa hadda waxaan leenahay marka connect HR/HR@ORCL BDB userkii hadda waa ku xiranay HR-ka ahay waxaan rabnaa marka si aan uga xiran shaashada marka hore iga tirtir userkan HR hadda waa inaan dhihi karnaa show user markaan dhahno userkeena hadda waa human resource userka HR-ka waa ku xiranahay marka waxaan raadinaynaa inta table ee userkan ku dhex abuuran select table name from user underscore tables toddoba table oo hadda dabcan nooga kooban yahay select star from departments tableka departments xogtaasaa noogu jirta waxaan rabnaa marka isagana inaan aragno qaybta muxuu ahaay sida looga xirmo SQL developer okay hadda SQL developerka markuu noo soo kaco shaashad sidaan noogu soo kacaya waxaan leenahay si aan asagana databaseka HR-ka si aan userradeen uga xirmano mid ka mid ah waxaan ku dhifanaynaa meeshaas ay ku qoran tahay new connection ama waxaad calaamadaas balasta ee cagaarka calaamadaas balaska meesha ay ku qoran tahay connection ama new connectionka meesha ah yaa waxaad ku siinaysaa click waxaa kuu soo baxaysa usernamekii iyo passwordkii meesha aad gashay lahayd boxkaada good markaan meeshaan waxaan u bixsanaya aniga muxuu ahay userka HR oo kale aan isaga baxsanaya magacan waa bedelan kartaa waxaad doontaan ka dhigi kartaa laakiin meeshaan userka HR la gelina iyo passwordkan ayada waxaa gelinaysaa sida saxda ah ee usernameka iyo passwordka ay u abuuran yihiin haddaad doonto color aad siisan kartaa ay kaaga duwan yihiin userrada kale
meeshaan markaad joogto marka service namekaas waa tegi kartaa oo halkan waxaa ku qoran kartaa ORCL PDB aad ku qori kartaa haddii inaad qorto aad ka wahsanaysana isla midkaanoo kale wuxuu ku jiraa meeshaan basiga inta furtid TNS kaas fur meeshaan wuxuu ahaa network aliaskan inta furtid kadibna ORCL PDB tag test leh test markaad tidhaahdid meeshaan waxaad ku soo baxday statuska in success uu yahay connectionka oo saxan yahay okay noo yahay wax walbo hadday laakiin error iyo waxyaabo jiraan intuu kugu soo qoraya errorka jira iyo nooca uu yahay connect yaad leedahay colorka marka waa isbedelay HR colorkiisa jaallo noqday wuxuu ah maadaama adiga colorka aad soo siisay color jaallo ah uu ahaa meeshaan markaad joogto marka waxaa kuu soo baxaysa meeshii loogu talagalay muxuu ahaa worksheetkii loogu talagalay in query lagu qoro hadda marka waxaan leenahay select muxuu ahaa table name from waxaad iga soo akhrisaa user underscore tables okay si aad u fuliso marka waxaa ku khasban tahay meeshaas muxuu ahaa run statement ama control enter inaad tiraahdo waxaa kuu soo baxaya userkan HR inta table oo uu ka kooban yahay aad ayaan kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah iyo muxuu ahaa daawashadiina